السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub. Shan cunto oo ka dhigayso da ahaan muuqaalkaada mid qurxoon. Ma dooneysaa in aad sameyso? Walaal, ka faa.ideyso kuna dadaal shantan cunto. Qodobka koowaad, isticmaal saliid zaytuunka. Baaritaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ay tahay saliid zaytuunka haddii qofku uu isticmaalo uu muuqaalkiisu noqonaayo da.diisa mid u yaraado. Saliid zaytuunka saliidaha ugu wanaagsan saliidaha cuntada lagu darsado, waxayna ka difaacdaa dhiigkarka uu qofka soo haleelo, waxayna daawo u tahay kansarka qofka ku dhaco. Waxay kaloo leedahay in aad iska caawiso xanuunada ku dhaco maqaarka. Sidoo kale waxay ka difaacaysaa ilayska daran ee maqaarka. Qodobka labaad, isticmaal shaaha caleenta cagaaran ama green tea sidaad u taqaano. Waxay la dagaashaa caleenta shaaha cagaaran, sokorta iyo dhiigkarka. Fadlan isticmaal green tea caleenta shaaha cagaaran. Sidoo kale waxay xoojisaa borotiinka maqaarka ee loo yaqaano collagen, waxayna ka difaacdaa duqnimada ku soo weerarto. Waxay kaloo hagaajisaa maqaarka jiidjiidmayo. Qodobka saddexaad, isticmaal kalluunka ama malayga. Waayo kalluunka ama malayga saliid badan ayaa ku jirto ama mid baruur ah. Kalluunka baaritaan lagu sameeyay ayaa la ogaaday in ay tahay mid wanaagsan, kana dhigayso muuqaal ahaan qofka hadduu isticmaalo mid yar. Sidoo kale kalluunka waxay daawo u tahay dadka muddo badan ilayska qorraxda dhaawaco, taasoo dhaawac u gaarsiiso jirkiisa. Waxay kaloo ka difaacdaa in uu jirka qalalo, waxayna ka hortagaa dhaawaca maqaarka. Qodobka afaraad, isticmaal chocolate-ka brown-ka ama jukulaatada brown-ka. Noocan chocolate-ka waxay ka wanaagsan tahay nooca brown-ka ee blueberry-ga ee canabka loo yaqaano. Qofka waxa ku wanaagsan in aad muuqaalkiisa uu yaraado ama uu qurxonaado. Cajiib, chocolate-ka ayaa lagu tilmaamay in ay tahay mid aad u sareyso. Haddaba ka faa.ideyso, waayo chocolate-ka waxaa ku jiro maadooyin aad u fara badan, qofkaasna oo ka dhigayso mid qurxoon. Qodobka shanaad, isticmaal waa tan ugu dambeyso, waana midda ugu wanaagsan ee loo isticmaalo, waana qudaarta cagaaran ee miraha leh. Qudaarta cagaaran ee miraha leh waxa ugu wanaagsan cuntooyinka loo isticmaalo, waana midda ugu khatarsan ee maadooyinka ku jira sida vitamin C, vitamin E iyo vitamin K oo ah midka jirku u baahan yahay waqti walba. Qudaarta dadka isticmaala ayaa la ogaaday in ay noqotay dadka ugu muuqaalka qurxoon uguna da'da yar. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena muuqaalka. Wabilaahi tawfiiq, is aragti dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.